وزير ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Rooda Jaamac Cilmi oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Cabdi Gurxan ayaa xarunta wasaaradda horumarinta maaliyadda ku qabalay wafdi ka socda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Wafdigan ka socday dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay hogaaminaysay Marwo Cabdi Casiis wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo gaadiidka waxa qayb ka ahaa ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka la taliyaha xafiiska ganacsiga ku-xigeenka xafiiska maaliyadda iyo ku-xigeenka la taliyaha madaxweynaha iyo xubno kale oo muhiim ah. intii uu socday kulanka laba geesoodka ah ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen sidii la iskaga kaashan lahaa arrimaha ay ka mid yihiin kobaca ganacsiga iyo dhaqaalaha, sidii si wada jir ah loogu xakameyn lahaa sicir bararka gaar ahaan qutul daruuriga, fududeynta isku socodka labada dhinac haday tahay badeecadaha iyo dadka iskaga gudbaya xuduudaha iyo isdhaafsiga khibrad iyo aqoon wixii dhinacba dhinaca kale ku dhaamo. ugu dambeyntii waxa la isla qaatay in la yagleelo guddiyo farsamo oo sii wada qodobada la isla qaatay. kulamada kuwan ku xiga lagu qaban doono magaalada ganacsiga ee Wajaale iyo caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii ay labada dhinacba u sii ambaqaadi lahaayeen qodobada lagu heshiiyay oo muhiim u ah dhinaca nolosha ee labada ummadood.